ku soo booqday gabdhihii Soomaaliyeed oo jaanisku u helay inay ka soo qayb galaan shirweynaha nabadaynta iyo dib u dhiska Soomaaliya ee magaalada Eldoret. marka hore waxaan ku soo gudbinaynaa salaan, marka kale waxaan ku sheegaynaa annaga maanta waxaan sameynay mudaaharaad nabadeed. waxaan ku sameynay hoteelka weyn oo shirarka ay ka dhacaan. waxaan soo aragnay mas'uuliyiintii Soomaaliyeed ee shirkan uu quseeyo dhan. waxaan u jeedinay inaan rabno nabad. waxaan u jeedinay inaan rabno dawlad cadaalad iyo sinaan leh. waxaan u jeedinay inaan rabno hubka dhigis loo siman yahay. way naga ogolaadeen waana nagu gacan qaadeen. sidoo kale bacdama aad tahay oday Soomaaliyeed ahna oday daci oo xusuus dheer ku leh ummadda Soomaaliyeed. Soomaali waxay qarka u saaran tahay burbur, waxay qarka u saaran tahay xirka kala jiidasho. waxaan ugu dagaalamay dawlad aan anaga aqoonin inaad oday noqotid, dadku isu soo celisid, nabad doonaysid, kaalin dahaban ay kugu qoraan haweenka Soomaaliyeed. intaasaan kugu soconaa taariikhda adduunka inaad geshid oo Soomaali aad isu soo duntid oo aad u waayeelaysid oo aad isu keentid. intaasaan kugu soconaa wixii akhbaari dhamaystirinteeda waxaan ku soo dhawaynayaa walaashay Xaawo Cosoble. baad u salaaman tahay. waxaan kuu soo gudbinayaa salaan aad iyo aad u qiimo badan anoo ku hadlayo codka gabdhaha Soomaaliyeed ee maanta ku sugan Eldoret iyo meel kasta ay jiraan. salaan kadib walaashay baa ku dhameysay qaladka iyo meesha aan u nimid. annaga haddaan haweenkii Soomaaliyeed nahay waxaan aad iyo aad u codsanaynaa oo u baahannahay nabad iyo dawlad loo wada dhan yahay oo cadaalad ku sugan. bacda ma adiga qasbay waxaan muran ka taagnay inaad adigu tahay nin Soomaaliyeed oo aad iyo aad u qiimo badan dalkana qiimo ku leh. marka waxaan kaa rabnaa oo codsigeedu uu yahay inaad adiga shirka hogaamiso oo aad gabadh ka soo qorso oo aad ummadda mataqaana isu keento oo tanasulaad la sameeyo. annaga aad u nabad karmale 12 sannadood waa intay Soomaaliya dhibaatada ay soo martay lagaaga sheekeyn maayo. marka waxaan kaa codsanaynaa annagoo walaalaha ah, annagoo xaasaskiinii ah, annagoo mataqaanaa gabdhihiinii ah in aad Soomaaliyeed walaalaha ah gabadhay kuu tagtay in aad gaaldaha ka qaadato oo ayaan qasrigaaga u joognaa kuuna nimid hoostaada u joognaa inaad nagu qadiriso nagu qiimayso. hooyooyinkii baan nahay qabaal waa idinku barnaa duco waa idinku barnaa inaad kaga qaadato oo noo farqaado inaad ku guulaysano oo aan ku faraxno aad noo sheegto aan la laabano. haatan idinkaa sheegay odayaal baan nahay oo fadhi maan isaga hadlaynaa Sooma. horta waxaa meesha galabta fadhiya haweenka da' laguma sheego looma sheego da' 25 ma dhaafaan. carruurtooda markay 30 jirto 25 bay jiraan horta. laakiin dadaan garanayo oo waa hore isnaqiin oo magaciisa idinku jira ma jiraan da'weyna haatan waa yaryaryiin. maymuun culuso waa ka mid ah. Xaawo Maxamed Cosoble gabdhahaasi anigoo xidigla ah oo wiil yar oo magaciisa fadhiya anigu waagaas qof aan qiimo laguma arko. gabdhaha ma beentay baa haddii waagaas kadib baa dhalateen horta aan idin camire waagaas kadib baa dhalateen horta. intaas kaftan weeye. inta labaad waan noo timaadeen oo anaa ila hadasheen haatan rag kale odayaal oo mas'uuliyiina oo reer Puntland baa halka fadhiya aan iskiin baro. idinku waa hadasheen gabarina ma oranay bileen. حاول قرنا يا حاول محل عصول واقعان أبيه أنا كين قبل ولاله أنا كين وعيسى أنا كين كوري محمد عصول العدوي أتينك قبل وقبل حاول قرنا يا هيدو حير قاسم يسكت سجلين برتاع السماء يا
ها ninkan koofiyada gashan madaxweyne ku xigeenka Puntland weeye Maxamed Cabdi Xaashi baa leeyahay ما شاء الله waa salaam dambi baan gelayaa ada odayaasha iskiin barin moogta ninkan Yusuf Ismaan Samatar Bardacad baa leeyahay ما شاء الله nimanka calan castaayo SBU loo oran jiray oo balalaha qabqablahoodii weeye laakiin markii dambe haatan iska dakaaway xabsi ka dagoo 19 sanadood buu laqay sabaankii Maxamed Siyaad ya isaga iga badan anigu inta kale 12 sano aan leh idinku banaanka iska joogteen oo iska fiicnayo iska camiranaysa gacankiina la socoteen aan isku miisno hadee horta goorma garateen in bala dhici doonto waagi wixii socday baa iska dhex joogteen oo u qabteen nabadi jirto goorma ogaateen in bala dhici doonto haddaan labada oday iskiin baray raggan kale waa rag dhalinyaro ah kulligooda dee ku daalin mayee laakiin odayaal badan oo reer Puntland oo jooga deeqa culjo deeqa raalli ah iyaga la yaqaan مرة بس أنا وقتي professor deeqa culjo baa leeyahay wasiir bay ahayd magaciisi bay ahayd deputaati bay ahayd waxa la wixii dad noqday ahayd ya haatan waftiga Puntland nabadda u yimid oo kal iyo laabsi ah nabadda u yimid bay waxay ka tahay xubin meel weyn bay noogu jirtaa haddeerna gudiyada la magacaabay noogu jirtaa ya أكو فرحسن maxay qofku wax yaqaan baa wax loo dirsaa nin iyo gabar ku doona ha noqday qofan waxba aqoon hadhow muxuu ku keenay ya marka intaas waa isbarasho midda kale waxaan idinka mahad celinaynaa annagu rag iyaga halkay degan iyo gabdhaha halkay degan deeqa gurigan wada deganna waxaanu kana deegaanka la yiraahdo Puntland marka halka la joogo Soomaaliya Puntland baa ugu jirta Soomaaliya annagu Yemen baa la gelisay Yemen baa la gelisay dalka ma taqaanin horta dhinacna gobolada dhaxan afqaynaayo galka ayaan joogo dhinacna labada badood meesha isugu yimaadaan ya baan joogo labada badood meesha isugu yimaadaan iyo gaalkay 1500 kilomitir bay isu jiraan baddaasna waa jiraa dal weyn waa haysanaa dad badanna waa nahay dawladana waa noo dhisanta ya anagu jamaad maahin faction ka sii hooseeya maahin bilaan nidaam maahin qabiiciisi maahin anagu 4 sano waqti laga joogo markaan Soomaali ka quusanay waxaan dhisanay gobolkan ku noolay oo 5 gobol degmo ka kooban yaanu anagu dawlad goboleed anagu Soomaali kama go'in karno meel ma aadi karno kaliya walaalaheen intay diyaar garoobayaan bal cadkaan yar oo dalka ka joogno aan maamul u dhisno aan nadaamino oo aan dadka shaqada ka qaadno oo aan arrimihii bulshada soo noolayno oo aan shacabkii cashuurtii waa ilaa cashuurtii ku soo celino aan biliis u samayno aan badgeliye ka samayno qiish Soomaali baan sugaynaa Soomaali baan sugaynaa anagu waaga aan saayelay oo markii Qaahira lagu soo fashay anagu Qaahira ragi ka qeybgalay waxaan aqli gelin baan loo keenay anigu ninkii soo dumiyay aan Qaahira horta taariikhdeeda meeyadana ogey ya tan kale markii naftiina qabatay waagii kaankii Maxamed Siyaad Barnaamij ka oo 6 sanadood ilaa dambi aan la xabsi lahayn haydiid baan isku qolka ina aadana la waqti 6daas wax dambi oo nalaaysi waxaan bas waa la idinka baqayay waxa tihiin imaan lawayaal ka candiya habeen oo madow aan soo saaray wana wiciida ma yidirsan mayna shadaadiin baa tigiine midna fiyaad ha tagay midna asbiin
ماشي سالو joogna dagaal baan loo dhisay waa soo dagaalnay waa guulaysanay siyaasadii waa lagu fashalay kadib waa uga tagnay waxa siyaasad baradal meeshii iyadoo naga damay ninkaan naga hari waayay ninkaas ka dhicinaaydo ciidan hub qaata oo ciidan shacab ah maxamed siyaad bare dawladdiisa ka hor yimaada